marka actually waxa danta ugu jirta Soomaalida inay dawladnimada ilaashadaan si uu qof kasta dawladnimaduna kama soo harto institutionska waxay u baahan tahay madaxnimada dawladda casriga ahi waa complex qof ma maamuli karo dhowr meel oo tagay madaxweyne saf loo galo iyo wasiir saf loo galo dawlad kuma horumarto wuxuu ku martaa institutions dhisma oo leh doctorka hal mid aan ku khilaaf kara oo sheegina waxa weeye wuxuu yiri dad ina ku filan wuxuu yiri waynu qabnaa maxaa la yiraahdaa laakiin Suudaan iyo Soomaaliya ana ka soo shaqeeyay dad ma qabno يعني على يعني عدم المؤاخذه دهان عربته waxa weeye anaga wasaaradda maamula dad ma qabno kama wadno yani madaxii dhigihii indhihii malihin ama ma socono ama dadka waxaan ka wadaa wixii looga baahnaa institutions dawladeed in la sameeyo ma aynu lihin yani human capital waxaan la yiraahdo waa inuu kullidan Singapore ka sheekeynay Singapore waxay ku hormartay waxa ma haysan human ninkii ka talin jiray oo kuwan li something la dhahay wuxuu jireeyay wuxuu yiri waa tusaalayaal badan baa idin karaan Sweden say ku hormartay maxaa la yiraahdaa meeshii uu sheegay hadaa Singapore say ku hormartay Singapore wuxuu jireeyay ninkaasi dadka dawladda u shaqeeya inay ka lacag bataan dadka sharikaadka private ka laakiin ay ahaadaan dad competencies iyo qualifications maxay yeelay institutions ayaa wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda wasaaradda amniga wasaaradda booliiska militariga hadaysan ahayn dad qualified oo macnaha dawladnimada fahamsaneen oo aysan fahamsaneen doorkooda ayaga shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo kusoo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE